ukuntaas u jeedid dahar adag ayaa saaran si waxa gudaha ugu jiro aysan u khasaarin. daharkaas adag adiguna dahar adag baa ku saaran, waxa ku saaray waa waalidiinta. ukuntaasi 3 marxalad ayay martaa. mar way fuuntowdaa, marna way jabtaa, oo marka ay jabto wixii gudaha ku jiro way khasaaran ama dhulka ay ku daataan ama wax faa'iido leh kama soo baxaan. marna digaagada ayaa ku fadhiisato jiiljiilmo ayaa ka sii dhasha. haddaba daharka si kasto u adag yahay haddii ukuntaasi si qaldan ay ugu fadhiisato digaagadu waxa laga yaabaa inay fuuntowdo. bini'aadankuna waxa laga yaabaa si ku caynayaan dhibaato kugu geysanayaan iyagoo ku soo marayo wadooyin kale oo sarbeeb ah. tusaale ahaan inay ku dhahaan waad isla weyn tahay, tusaale ahaan inay macnaha wax markaas adiga ka muuqdo dabeecad ahaan ama dhaqan ahaan ama muuqaal ahaanba inay kugu caayaan. dadku waa 5 farood oo kale waa kala duwan yihiin. qof walbaba si gooni ayuu u socdaa, qof walbaba si gooni ayuu u hadlaa, qof walbana dhaqan gooni ah iyo dabeecad gooni ah ayuu leeyahay. qofka aan dabeecadaada iyo dhaqankaaga kugu wadi karin faa'iido kuma hayo, kaliya waxaad uga guuleysan kartaa inaad iskaga hartid ama aad dhammaan go'aan ka qaadatid inaad mar dambe is aragba qofkaasi. laakiin qof mar walba ku dhibsanaya ee kugu dhibsanaya sida u taalid muuqaaga, fikirkaaga, aqligaaga, waa qof noloshaada aan diyaar u ahayn inaad horumar gaartid. go'aano waxaa jira qofka uu qaato si uu guul u gaaro. dadku adaa ka maarma iyagu kama maarmaan. haddii aad wax tar leedahay, haddii aad fikiraysid, haddii waxa aad haysatid ay yihiin wax adiga kuu muuqda. marka adiga waxa aad haysatid ama shakhsiyadaada sida u taalid aysan kuu muuqan ee aadan karti lahayn, mar walba dadka ayaa u baahanaysa, dadkuna mar walba way ku dhibaataynayaan. ukuntaani aad u jeedid haddii aysan qoloftaan lahaa lahayn waxa gudaha ku jiro qiimo ma yeesheen. waayo waxa jaalaha ah iyo waxa cadaanka ah waxa sheebkooda hagaya waa qoloftaasi. adiguna qoloftaas oo kale ayaa ku saaran, waxa ku soo saaray waa waalidiinta. waxa ay ku dadaaleen inaad nolosha horumar ka gaartid. waxa ay ku dadaaleen in mar walbaba aad adigu wadadaada saxda ahayd aad qabsatid. marka aad soo qaangaartid waxa laga yaabaa in aad la kulantid dad badan oo kala duwan oo u dhaxeeya xaasidiin, dadka iska neceb aan garanaynin waxa ay ku nacayaan, dad macnaha iska hortaagan dadkaasi si aysan guul u gaarin, ayaguna guulna ma gaarayaan. marka mar walba haddii aad ku dadaashid inaad cabsoonin, haddii aad ku dadaashid in waxa aad ku taagan tahay ay yihiin wax adiga xaq aad u leedahay, waxa aad ku taagan tahay ay tahay wax macnaha naftaada dan u ah aad ku farxaysid, ukuntaasi faa'iidada labada faa'iido ee leedahay baad yeelanaysaa. waayo waxa laga yaabaa si walba gudahaagu nadiif u ahayd, si walba aad gudahaagu ee u dhisneed waxa soo baxaya jiiljiilmahaasna waa mustaqbalkaaga dhabta ahaa oo aad adigu ku farxsan tahay. haddii aad mar walba dulmiga aqbashid, haddii aad mar walba iska dulqaadatid aad samartid, waxaad noqonaysaa sida ukunta oo kale mid fuuntooba, mid aan qiimo yeelan. macallimiintu waxay soo baray macallin ka mid ah mar walba wuxuu dhihi jiray waxa aad xaq u leedahay u dagaaltam, waxa aad xaq u leedahay weligaa ku taagnow. waayo muhiimadu aad u nooshaa waxa ay tahay adigu inaad farxad heshid, maaha dadka kale inay farxad helaan. adigu marka aad farxad heshid dadka kale farxad waa sii kartaa. waa saaxiibka Shaahid Beesaani meel walba dunida ka joogtid. waxaan ku rajaynayaa farxad iyo caafimaad iyo inaad adigu isku muuqatid si aadan u fuuntoobin. Assalaamu calaykum.